ka waran haddaan kuu sheego dal ku yaalla Yurub oo kumanaan dumar ah la daalaa-dhacayaan dhibaato aanad filanayn. maahan shaqo la'aan, sidoo kale maahan dhaqaale xumo, balse waa rag yaraan ama rag la'aan ayaa ka jirta dalkaasi. haa, waa sidaad maqashay. Latvia dumarku waxay aad iyo aad uga tiro badan yihiin ragga ku nool dalkaasi. arrintaasina waxay saameyn ku yeelatay guurka, qoyska, dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka dhan. xataa waxaa la sheegay inuu jiro adeegyo caanka ah dalkaasi oo lagu magacaabo saacad kirayso nin. laakiin sidee waddan dhan ugu dhacday xaaladani? maxaana sababay rag yaraanta ka dhacday dalkaasi? sidoo kale maxaa ka dhalan kara haddii ay sii socoto arrintani? waxaanu geli doonaa mid ka mid a sheekooyinka ama dhacdooyinka cajiibka ah ee Yurub. marka laga hadlayo Yurub, inta ugu badan maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya magaalooyin qurux badan, nolol degan iyo dhaqaale xooggan. laakiin gudaha Latvia waa mid ka duwan sheekadaasi. ka hadlaya dalkan, dadkiisu wuxuu gaadhaa ku dhowaad 2 milyan. marka la isbarbar dhigo ragga iyo dumarkana, dumarku boqolleyda marka la xisaabiyo 53 waxay ka yihiin bulshada dalkaasi, halka raggu ka yihiin 49. taasoo kala sarinta tiradaasi ay gaadhayso in dumar gaadhaya ilaa 130,000 ay ka badan yihiin ragga marka la barbar dhigo. tan ayaa Latvia ka dhigtay mid lagu tilmaamay inuu yahay dalalka leh kala duwanaanshaha ugu weyn ee u dhexeeya tirada ragga iyo dumarka. laakiin tan maahan sheeko u dhaxaysa ragga iyo dumarka, balse waa sheeko taabanaysa taariikhda, caafimaadka, dhaqaalaha iyo sidoo kale mustaqbalka bulshada. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa ku dhacay Latvia? marka hore waa inaan fahnaa waxaa sababay dhibaatadani, taasoo ah in dagaalkii labaad ee adduunka uu saameyn weyn ku yeeshay tirada ragga, kaasoo aad iyo aad u dhimay. maadaama ay raggu geli jireen dagaalkii labaad ee adduunka, Latvia waxay lumisay rag aad iyo aad u badan. sidoo kale midowgii Sofiyeeti waxa uu mustaafiriyey raggii ugu badnaa ee ku noolaa Latvia. tanna waa mid ka mid ah saameynta tiro yaraanta ragga kaga dhacday ee dalka Latvia. bal ka fikir inaad ku nooshahay waddankan, halkaas oo dumarku si weyn uga badan yihiin ragga. su-aashuna waxay tahay, maxaa isbedelaya? jawaabtu waa wax walba, laga soo bilaabo shukaansiga ilaa iyo guurka iyo xitaa howlaha guriga. haween badan oo ka mid ah dalka Latvia waxay galaan tartan aad iyo aad u adag, kaas oo ah helitaanka lamaane ku habboon. sidoo kale dhacdooyinka cajiibka ah ee laga soo sheegay dalkan ayaa ah in dumarka markay gaadhaan da'da 30 ay aad iyo aad u adag tahay helitaanka lamaane, ama mar kale inay dib bilaabaan shukaansi, taas oo noqota midda ugu adag ay wajahayaan dumarka Latvia. xaaladani waxay bedeshay habka ay dadku wax u shukaansadaan. haween badanna waxay bilaadhiyeen goobihii ay ka raadin jireen inay lamaane ka helaan, kuwaas oo u gudbay xuduudaha ka baxsan Latvia, iyagoo mararka qaarkood u gudba dalalka ku xeersan dalkooda. dalkan waa Latvia, dal ay aad iyo aad ugu yar yihiin raggu. bal adigu haddii aad nin tahay, haddii lagu geyn lahaa dalkaasi, sideed u arki lahayd? sidoo kale haddaad dumar tahay, dalkaas ma ka soo mustaafiri lahayd oo ma u guuri lahayd dalalka kale si aad u hesho lamaanahaaga?